بسم الله الرحمن الرحيم وكان سعيد محمد تيس ونول يحي وستحية صياصة شر وحدة يحي أنا روتشستر لي يراهو ودورت نيويورك أيو شودا مركي دو دبيسي وعفاف قبي ورفعنا وحشيت الأبايسا جيس هي جيس كان نتن جيس اللي يراهو وأوجي دي لبات وي أوجي دي لبات وي أوجي دي لبات جيس شيخطول هي حسن شيخطول هي عروتودي وحليبة موياني هي انت دوني كسو دعين بربردتي مرتي قرن دوها دولي ستات بقول هي ثلاثة هي شنتي هي تكين سيدي بانو شودنا هو أنو تسويت الله يسويت الله أوجي ومحمد صدوا وحي يرسل بالك أبهاي سووا كل شيء 1927 أيوب كرت كل شيء أوجي إن صدوا يرو وحبا أنت جرنا بالك أوجي 1927 أيوة أستر كان نقطي صدوا ناخذ يدون وحبصوب ناخذ بوليس معبود أبهاي 1946 أيوة وزارة حافظات أنا دون 1970 أيام محل النقطة ستح رياضوبة سير فسكا إنه هي ستيورتي هي حافظات هي وحبرشة أيام صومر وحمرك قصبة هنا حسوس طادي حسوس طادير هذا الميرو شغل Soomaalidu way sheekeeyaan wax ma qoraan shiladeena haysataana taasay ahayd cidina wax kama tagin sidii aan sheeko maalin hore u sheegay guudii hore waxaan u tegay maalintuu cidaadintay waxaanu joognay Pretoria su-aashii ugu horreysay xaaskiisii baan u tagay waxaan wax qoraala ma haysa maya bay maalintaasi aan waxaan doostay inaan wax qoro oo wixii soo mara aan balxariiqo ee waxay keentay inaan buuggan yar aan ku soo qoro iyadoo kooban weliba oo wax badan aan ka tiri waxaan ilaahay ka rajaynayaa dhallinyarada dambe inay wax badan qoraan oo ay haddaanad taariikh aanad hayn waxa kugu soo socdana garan maysa aabbahay wuxuu qoray dhowr buug laba buug oo talaan daabacay baa jira oo aanu iyaga waa diin wuxuu qoray asxaabihii qisas alambiyaa buu qoray oo aanu masaajidada iyo siinay iyo iskuullada iyo wuxuu qoray umahaata rasuul oo ah hooyooyinkii nebiga isna wuu qoray labadaa buud baa hore u qoray buud weynna caafimaadka Soomaaliya laansiduu u bilaabmay wuu qoray laakiin weli maan taabicina waan haynaa haddii eebayd taasi waxay u geliftay aniguna inaan wax isku dayo isagayga qoraa badan markaan labada iyada aaneen anigu waxaan wadaa oo kale buug aan hadda 30 sano waday oo aanan weli aanan ka tegin oo waxa weeye xidhiidhka dadka af Soomaalida ku hadlaa iyo dadkii Masar deganaa ee la oran jiray faraacinada ayaa wadaa 30 sanana waan waday walina way socotaa ilaahay waxaan rajaynayaa inuu waqti dhow
u soo baxo waxaan ku noqonayaa buudkani habka uu qoran yahay uu ka duwan yahay waynu adkaa inaad shaata lama wada qori karo qofku boring buu ku noqdaa waxaa ka dhignay articles marka mid walba way madax banaanto sidiisu u akhrisanaya qofku kalena markuu doono akhriyaya marka qaybta anigu aan qoray waxay ka hadlaysaa somaliland oo maanta dhalaalaysa baynu aragnaa horumartay oo dimuqraadiya oo tolerant ah oo dhaqaalaheedii kocayo oo nabada oo soomaali meel kasta ka timi ay ku nooshahay oo kubada ciyaaraysa oo waa wax lagu farxaa geeskan africa dimuqraadiyadda ma jirto xaafado xun baynu ku noolnahay waad aragtaa hadda xabadda ka dhacaysa etoobiya gudaheed waad aragtaa meel walba nin dictatora is haysta oo ayaa ila hadlaa iyadoo taasu jirto ayaa somaliland waxay ku guulaysatay inay samayso nabad iyo dimuqraadiyad iyo isbedel xukunka la iska bedelo oo maanta halkaa inaad soo gaartay markaa waxaan isu dayay bal haddaa wixii aan ka garanayo sidii loo sameeyey waxan iyo tajribadii ay soo martay iyo anigu halkii aan ka qaybtaan ka qaadanay ayaan ku qoray anigu qaybteedu saasay u qoran tahay generation walba wuxuu ka hadlaa waayihiisuu leeyahay waayahayeedii ayaan anigu ka hadlay saciid maxamed geesa abahay wuxuu ka hadlayaa waayihiisii wuxuu ka hadlayaa isticmaal sidii loola dagaalamay wuxuu ka hadlayaa axsaabtii soomaaliya ee fumatay wuxuu ka hadlayaa hibiladii shanta soomaaliyeed ee shanta soomaaliyeed la doonaya halkanuu isagoo dowladda u shaqeeya 1957 ayuu fasax halkan ka qaatay wuxuu doonay inuu taga xamar oo bal soo arko wax lagu yidhi fiisaad u baahan tahay waxaa lagu weydiinayaa fiisaa usulta ingiriiska ee fadhiya xamar fiisihii baa ka daahay dabeedna gaari buu iska raacay niman bacmisteriya buu raacay nimankii waxay ku yidhaahdeen xadka somaliland markaan ka baxdo oo xadka soomaaliya tagno adkaada waad xidhanaysaa ma hadlaysa haddaad hadashid laashadaadaa lagu garanayaa waa lagu xidhayaa marka abtiisuu xidhay ilaa intuu xamar ka degay buu hadal wuxuu ka sheekaynayaa hadan cabdulla cismaan oo dukaan ku haystaa beledweyn inuu sii maray wuxuu ka sheekaynayaa cabdullaahi ciise cabdirashiid cali sharmaad wuxuu ka sheekaynayaa nimankii meesha waktigaa ahaa wuxuu ka sheekaynayaa halkan xisbiyadii laga furay wuxuu ka sheekaynayaa xisbi loo diiday halka sheekeynaya oo berbere ka furan oo isaga iyo laba ninoo saaxiibadii oo ay shaqada ku wada jireen markay tageen la yidhi war aduu sajood oo waayo aduu qolo kalaa tahay ayuu la sheekeynaya oo labadii ninee la socday ay xanaaqeen oo yaradeen war waxba jaalimayne naga tag oo ay isga yimaadeen wuxuu ka sheekaynayaa halkan oo la isu dilay oo qabaa'il isu dileen oo ciidamo laga keenay cadan oo uu dhakhtarka joog oo u daweynayaan dadka dhaawaca magacyada dadka uu ka sheekaynaya oo magacyo badan waa inay inagu garanayn uu ka sheekaynaya sultaan cabdullaahi sultaan cabdullaahi wuu ka sheekaynaya wuxuu ka sheekaynayaa sultaan dambeeye wuxuu ka sheekaynayaa gabadhii ugu horreysay ee siyaasad lagu xidho gabadhii soomaaliyeed
ugu horeysay ee dowladda ingiriisku ku xidho siyaasad oo ah saare sultaan cabdullaahi ayuu sheekaynayaa wuxuu ka sheekaynayaa maxamed cabdi ninkii oryadanka lahaa oo siiyey qol ay ku siraan wuxuu ka sheekaynayaa duba caliyare oo ahaa ninkii qora ee af ingiriisi ku qoraa waxa ay soo ururiyaan wuxuu ka sheekaynayaa dad badan oo siyaasadda somaliland ama soomaaliya ka soo qayb galay siyaasaddaa u galay ayaa annagana ay u kaliftay inaan siyaasadda aan ku soo aan dhinac ka waayahaas uu tegay waayihii annaguna waa dabadabo annaga waxaanuna la yidhaahdaa baby boomers waxa weeye dadkii dhashay dagaalkii labaad wixii ka dambeeyey 1945 wixii ka dambeeyey ilaa 1964 intaa u dhaxaysa ayaa waxa la yidhahaa baby boomers adduunyadoo dhan way joogaan maraykan waa 70 milyan halkan wax yar baa ka hadhay anigii iyo cabdulqaadir iyo faysal waxaan maleeyahay halkan inaa iyo aadani waa la yar yahay laakiin weli xataa waa lagu badan yahay annagu waxaanu ka qayb galnay generationkaas waxaan ka qayb galnay laba dagaal dagaalkii 77 iyo dagaalkii Soomaaliland lagu soo xoreynay labadaba way ka qayb galeen waxay ka qayb galeen dib u dhistii Soomaaliland ee maanta halkaas soo taagan ayaa ka qayb galeen way socdaan tobanka sano soo socda xabad ka arki maysid waa soconayaan waxaan markaa soo haday waa dhalinyarada maanta joog waxa markaa iyana waayaheed ayaa waxaa laga rabaa waxay inay ku tashiil qaataan Somaliland inay dimuqraad sii ahaanayso Somaliland inay nabad sii ahaanayso Somaliland inay horumar samaynayso oo peace-na samaynayso economy wealth dhaqaalaha hadda jira nimankaasaa jabeeyey waxaan usustaa wasiirka maaliyadda waana 1999 ilaa iyo 2001 nimankaa maanta wada milyaneerada iyo daba waxba haysan ayaa xafiiska igu iman jira waa cabdikariim maxamediin markuu samaynayey saaxab shiil ina aw saciid waa gruubka weelka sameeyey ee maanta intaasoo qof u shaqayso ee intaasoo qof shaqaale siiyey ee intaasoo mashruuc sameeyey waxaa laga rabaa dhalinyarada waa lacag wax ma soo kordhin doonaan dhaqaale Soomaaliland dimuqraadiyadeeda ma sii wadi doontaan nabadgelyadeeda ma sii wadi doontaan soo koobaya waxbaa jira markaa taariikhda aragtid sheekada mar walba ka soo baxaya oo Soomaaliya waxa weeyaan habka beelaysiga uu ka sheekaynayaa Siciid Maxamed xisbigii asalan oo codkaa maraya oo qabiil lagu kala jabiyey uu ka sheekaynaynaa waynu soo wadaran imise xisbiyaynu soo haysan ba qabiil haddana lagu kala jabiyey oo hadda ilaa weli hadda lagu kala jabinay marka dhalinyarada waxaa dhammaynaa xal ma u heli doonaan habkan beelaysiga ee ka hor imanaya maamulkeeni iyo horumarkeeni si cilmiya ma loo darsi karaa wanaaggiisa iyo xumaantiisa sida loo kala qaadi karaa marar buu fiican yahay markuu waddooyinka dhisayo ee laamiyada samaynayo ee iskuullada dhisayo dawa alxamdulillah markuu qoriga soo qaato ee tolaha ee iyada
reerkaasuna waa mar kale dhibaatadiisuu leeyahy markaas sidee looga gudbaa waa waxyaalo weli inoo taagan aynu u baahan nahay inala waxaa la yidhi buur qoraalku akhristu buur haddaan qofku markuu buur akhriyo waxaa la sheegay waa mid maskaxdu garaadku wuu tordhaa garaadkiisa way tordisaa qofka akhriska buuraag midda labaad kalsooni bay siisaa aqoonta badan uu qaatay kalsooni bay siisaa midda saddexaad waxay siisaa naxariis markuu dhibaatooyin arko oo waxaa arko waxaa ku beermaya naxariis baa ku beermaysa marka waxaynu u baahannahay in dad badani aynu wax aqrino oo buuraag badan aynu helno oo translate garaysano kuwa jira soo bedelno oo kuwa qoran la aqriyo la riidi jarayo sida kaloo caawa kale halkan la isugu yimi oo kale oo loogu doono marka waxay dhiman doontaa waqti intan aynu ka fiicnaan doono oo inta ka horumarsanaan doono oo buuraagtu ay noqon doonaan wax qofku uu maalin walba qaato aad baad u mahadsan tihiin waa cabdiqaadir wuxuu igu leeyahay canjeelo badan buu igu leeyo oo markaanu fiishar ku jiray aroortii ayaa sii raaci jiray oo xaafadooda u dhoweyd iskuulko waad xaafadda jirtay u dhowdahay marka halkaasoo kaa fiicanoo hooyadii cudbi la oran jir ayaa baal canjeeloo subad leh ayayna sii jirtay marka wuu igu leeyahay wali umaad soo bedin wasalaamu